wafdigii golaha deegaanka magaalada Hargeysa ayaa kulamo la yeeshay guddiga golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee cariga Sweden. kulankan oo ka dhacay guriga looga arrimiyay magaalada Stockholm ee cariga Sweden ayaa wafdiga golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa waxa kulanka ku heliyay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire sidoo kale maayirkii hore ee magaalada Hargeysa Maayir Jiciir. kulankan ayaa labada dhinac ka wada hadleen qorshayaasha magaalada Stockholm ay doonayso in ay wada shaqeyn buuxda ay la yeelato magaalada Hargeysa iyadoo labada dhinacba ay soo bandhigeen fikradaha markaa waafajin kara ama sida ay ku suurtoobi karto in ay labada magaalo ay yeeshaan wada shaqeyn buuxda oo mustaqbalka foga. wafdiga golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa oo uu u hadlayay maayirka magaalada Hargeysa ayaa maayirka waxa uu ka dalbaday magaalada Stockholm sidii ay waxyaabo fara badan uga shaqeyn lahaayeen oo ku saabsan dhinaca adeega bulshada. halkaas sidoo kale waxa ka hadlay isaguna wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo u sheegay golaha deegaanka ee magaalada Stockholm in xukuumadda Soomaaliland ay diyaar u tahay inay wada shaqeyn ay yeeshaan magaalada Hargeysa iyo magaalada Stockholm. maayirka magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinay kulankii dhex maray isaga iyo golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ayaa waxa kamid ah ereyadiisi sidan: bismillahir rahmaanir rahiim, alxamdulillahi rabbil aalamiin, sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. kulamada kuwa ugu muhiimsan waa tawajaaliyada reer Soomaaliland oo si aad u qiimo badan loo soo dhaweysay aan mahad badan uga celinayo ilaa xalay ilaa shalay podcast inuu soo dhaweynay waa aad u dadaalay. kulamada kale waxa weeyaan ka ganacsato oo Swedish-na waan kulanay kii ugu muhiimsanaa oo ahaa ka dawladda hoose oo ahaa mataaneynta labada caasimadood maamulka ugu sareeya qaybo kamid ah ayaan wali kulanay si fiican way noogu socotaa iyadoo aanu baahiyaha iyagana u gudbinay iyadoo laga wada hadlayo imika xafiis laga furi doono Hargeysa oo ah Center for Local Development and Diaspora oo ah dadka u soo iskood doonaya inay wadankii u soo degaan wax ka qabsadaan u shaqeyn doona oo maalgelinta ka shaqeyn doona laguna caawin doono wixii ay u baahan yihiin iyadoo taa dawladda muxuu ahaa Stockholm ay ka qayb qaadanayso. hawshaas si fiican bay noogu socotaa waananu wadnaa kulamadayada qayb baa harsan ilaa bixitoolaha hadii la hayran inaanu soo gabagabayn doono taas filaya. waxaa jira Cabdiraxmaan maanta inaad kala hadashay qolada adiga wafdiguba يعني dhalinyaro fara badan oo reer Soomaaliland shaqo la'aan aad u saameysay loo baahan yahay in ay dawladda Sweden ay ka caawiso in gudaha wixii ay ku caawin karto ay magaalada Stockholm aad ka kaashataan. marka dhibaatooyinka ugu faraha badan ee aad u bandhigtay ee aad maanta uga warantay ee xagga dhalinyarada Soomaaliland ku nool ah maxaa kamid ah? runtii waxaan u bandhignay inay dhalinyartii ay tahriib badan galeen hawlo badan oo sharci darro ay galayaan iyaga oo badaha ku leeyanaya markaana in shaqo abuur gudihii ay nagala caawiyaan aanu samayno shaqo abuurkaas oo badanka aanu doonin inaanu uga faa'iideysano si magaaladana loo qurxin lahaa bilicda magaalada hadday noqoto mashaariic in loo sameeyo iskuulo technical ah iyo professional hadday noqoto caafimaad hadday noqoto muxuu ahaa electricity hadday noqoto dhagaxaanta yacni waxyaabihii magaalada lagu qurxin lahaa inamadiina u noqon lahaa iyo hablihiiba professional ay ku shaqeystaan taasaanu kala hadalay inay naga caawiyaan oo ugu muhiimsana oo iskuulo technical ah oo professional ay ku noqdaan in gudihii wadanka looga sameeyo. sakari adiguna bal ka waran wafdiga Soomaaliland ka yimi ee maayirku hogaaminayo ee maanta ku sugan Stockholm. aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdikariin adiga telefishinka qaranka Soomaaliland la'aantiin horta kullay warar fara badan amba xogta maanan suurtagal noomay noqotay inaan gaarsiino shacabkeegii waxaan mahad gaar ah u naqayaa walaalkay Mustafa Ismaaciil oo isaguna hawshan muddo 4 sano ah ka shaqeynayay inta kale Soomaalida Saacadiya waxa aan ku oran karaa annaga maanta guul weyn bay noo tahay haddana nahay daladii guud
in ujeedadeedii iyo hawshii aan kusoo jiray ay meel fiican noo marayso maayarkiina kulley hadaladiisa waad maqlaysay laakiin jooga iyo waxqabadkii waxay noo marayaan meel fiican oo aada u rajo fiican insha allah waxaan rajaynaynaa in heshiiskan lala geliyo Stockholm City uu si guula ku dhammaado dalkeena horumarkiisa nin waliba meeshuu joogaba uu dalkiisa wax u qabto